Okay, as a graphic Somali designer waxaan doonayaa another company inaan siiyo constructive criticism. Company-gan maaha company aan aqoon badan u lahaa, Hormuud baa lahdaa, waa telecommunication company. Waxay jiraan qiyaastii in ka badan 20 sano. Dadku aad bay uga xanaaqaan, waxay la qabsadeen haddaad wax badan bedeshid. So waxaan isku dayay inaanan saaid u bedelin. Runtii company-ganna sida u isticmaalayaan logodooda way fiican tahay. Saas uma kala duwana. Waan ogahay dad badan inay aad ii soo weerareen videogii hore ay lahaayeen dahabshiil shirkado kala badan oo kala duwan bay haysataa. Waan ogahay still logodooda khalad bay u isticmaalayaan, xariijimaha khalad bay u isticmaalayaan, laakiin Hormuud kuma arkin dib oo saas u weyn oo logodooda khalad inuu isticmaalayaan. The only thing waxaan arkay inaan haysanin logo mark fiican ama icon fiican ma haystaan oo recognizable ah oo meelaha lagu dhajisan karo. The only thing aan ku arkay inay haystaan waxa weeyaan H-ta ayay signalka Wi-Fi-ga la saaray. Taasna enough maaha for recognition. Sida halkan ka aragtaan waxaan isku dayay inaan u sameeyo maxay ahayd recognition yar oo lagu barto ama logo mark iyaga lagu barto. Haddana waxaad tusayaa mockups-ka aad ka arki doontid sidii ku soo baxayso si fiican bay ku soo baxaysaa, waana easy to recognize, meelo badan oo ku isticmaali karaan. Marka sidan u hagaajin lahaa laakiin aad uma bedeli lahayn.